guddoonka iyo xildhibaanada aqalka sare ayaa bilaabay kulamo lagu xalinayo khilaafka ka dhex jira madaxda dalka. dhanka kalena xildhibaanada aqalka sare ayaa maanta lagu wadaa in ay kulan ku yeeshaan magaalada muqdisho, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena mahad maxamed cabdiraxmaan mutawakil. waxaa saacadihii lasoo dhaafay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ka dhacaya kulamo kala duwan oo yeelanayaan madaxda qaranka, kuwaasoo ujeedkoodu yahay in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay mooshinka laga gudbiyey madaxweynaha Soomaaliya. mooshinkaas saxaanshihiisa ay ku kala qaybsameen guddoonka golaha shacabka, iyadoo xubnaha golahaasi ay laba garab u kala noqdeen. kulamada dhexdhexaadinta waxaa bilaabay guddoomiyaha golaha aqalka sare xildhibaan cabdi xaashi cabdullaahi, kaasoo shalay la kulmay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan, iyadoo la sheegay in guddoomiye cabdi xaashi xalay uu kulan kale la qaatay madaxda kale ee qaranka. natiijooyinka kulamadaas ayaa loo soo bandhigeen bahda saxaafadda. xubnaha golaha aqalka sare ee dalka ayaa maanta lagu wadaa in muqdisho ay ku yeeshaan kulan, waxaana wararku shabeelle helayso ay sheegayaan in kulankooda ay kaga hadli doonaan khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan yahay xilligan xubnaha golaha shacabka, iyadoo suurtagal ay tahay inay magacaabaan guddiyo dhexdhexaadin ah. warar kale ayaa sheegayay in guddoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan, guddoomiyaha golaha shacabka, suurtagal ay tahay in maanta markii ugu horreysay tan iyo markii uu bilowday khilaafka inuu la hadlo bahda saxaafadda, kana hadla arrimaha ay ka mid yihiin saxaanshaha xanibaadda la sheegay in guddoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan hoyga uu ka degan yahay xarunta madaxtooyada Soomaaliya la saaray. waxaana shalay jirtay in guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan laga celiyay kulan la sheegay in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya uu kula qaadan lahaa xarunta guddoonkii guddiyada joogtada ee Villa Hargeysa. cabdikariin xaaji cabdi buux, xogyaha guud ee golaha shacabka, ayaa shalay soo saaray warqad uu ku ogeysiinayo guddoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenadiisa in buray mooshinkii ka yaalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo, taasoo sheegay in 14 ka mid a xildhibaanada soo gudbiyey mooshinkaas ay ka baxeen. waxaana uu sheegay in arrintaas ay jirto, welina kama uusan hadlin guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan, kaasoo kor hore qabtay mooshinka laga gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo. waxaana sidoo kale jira xildhibaan si iskooda isku soo xilqaamay, kuwaasoo ka mid ah xubnaha golaha shacabka oo kulamo kala duwan la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan, kalana hadlay sidii loo qaboojin lahaa xilligan xaaladda siyaasadeed ee ka jirta xubnaha golaha shacabka iyo guddoonkooda. kulamada sidoo kale waxaa ku biiray senatare ka tirsan golaha aqalka sare ee dalka. lama saadaalin karo sidee wax noqon karaan saacadaha lasoo socda ee maanta, iyadoona wararku qaar ay sheegayaan in lasoo gabagabeyn karo ama xilliganba ay suurtagal tahay inay soo gabagabeeyaan guddoonka golaha aqalka sare khilaafka siyaasadeed ka dhex dhashay madaxda ugu sareysa dalka ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo guddoonka golaha shacabka, tan iyo markii guddoonka golaha shacabka uu qabtay mooshin ka dhana madaxweyne farmaajo. faahfaahino kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada Itoobiya oo ka dhacay gobolka Bakool, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Guleed Cumar Xasan. sidaan ku heleyno wararka ka imaanaya gobolka Bakool, dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada Itoobiya ayaa saacadii ugu dambeeyay ka dhacay deegaano hoostaga degmada Waajid ee gobolka Bakool. dagaalkan ayaa yimid kadib markii kolonyo ka tirsanaa ciidamada Itoobiya wadada loo galay, kuwaas oo siyaabooyin kala duwan uga yimid dhanka xuduudda kana soo galay deegaanada Caato iyo Baarey. waxaana la sheegayaa ciidankan oo ku wajahnaa degmada Waajid ee gobolka Bakool inay la kulmeen weerar dhabagala kuwa oo dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen ciidankaas. weeraradani oo sida wararku qaar ay sheegayaan ku bilowday qaraxyo ayaa waxaa xigay dagaal toos oo dhinacyadaasi dhex maray, ilaa iminka lama oga khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalkaas. yeeshee waxaa la sheegayaa in dagaalka kadib ciidamada Itoobiya dhowr madaafiic ah ay ku garaaceen agaaraha goobo ay tuumayeen in waqtigaasi ay kasoo weerartageen dagaalyahanada al-shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda dagaalkan ayaa waxay sheegeen in agagaarka deegaanka Buurdhuxule ee gobolka Bakool ay ku weerareen ciidamo Itoobiyaan ah, isla mar ahaantaana halkaas ay ku gaarsiiyeen khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. waxayna sheegeen al-shabaab in ciidanka Itoobiya dhaawacyada iyo meedadkooda
ay ka daabuleen degmada waajid kuna qaadeen diyaarada helicopter ah waa sida hadalku u dhigeen. ma jirto waxwar oo kasoo baxay dhanka saraakiisha ciidanka dowladda iyo kuwa Itoobiya ee ku aadan dagaalka ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka Bakool. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa ku baaqaya in la isku xilqaano ka hortaga kalluumaysiga sharci darrada ah ee dalka sida warkani uu ku hayo wariyaheena jaamac maxamed saalax jaamac kadiye. mahdi maxamed guuleed qadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sheegay in laga qayb qaato dib u dhiska dalka islamarkaana laga faa'iidaysto khayraadka Soomaaliya uu alla ku manaystay si sharci ah. wuxuuna intaasi ku daray in ay haatan indhaha caalamka ay ku soo jeedaan Soomaaliya si ay adduunka inteeda kale wax ula qaybsato. mahdi maxamed guuleed qadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa hoosta ka xariiqay in laga hortago dadka sida sharci darrada ah uga kalluumaysta xeebaha Soomaaliya. waxay ka dhigan tahay in aynu horumar ka gaarayno dhinacyada adeegyada kala duwan iyo dhaqaalaha inagu duugan iyo khayraadka inagu duugan dunidu inay ka faa'iidaysato innagana ay nooga soo baxdo shaqo abuur ay ganacsatadu ku hesho dhaqaale inuu ku soo galo iyo kalluumaysatada kaleba caalamkuna ka faa'iidaysto khayraadka aynu leenahay ay nagu duugan aynu danta dalkeena u soo wada jeedsano aynu kalsoonida dhismaysa abuurmaysa ka wada shaqayno aynu shaqo abuurkaaynu samayno dhalinyarada tahriibaysa kaga hortagayno kalluumaysiga sharci darrada xeebteena laga kalluumaysanaya aan ka hortagno oo liisankaa sharciga ee wasaaraddu maanta ay daahfurtay bilaabmaya soona shaqeeyey oo hadda si banyaalo daahfurnaana bangiga wuxuu ugu dhacayaan. shalay ayay ahayd markii si rasmi ah dowladda federaalka Soomaaliya ee u daahfurtay rukhsadsiinta ajaaniibta ka kalluumaysata xeebaha Soomaaliya. hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda Soomaaliya ayaa ka warbixisay ballaarin iyo qalab casri ah oo lagu soo kordhiyey hay-addaasi. Ismaaciil Axmed Maxamed Ismaaciil Turki ayaa warkan inoo haya. taliyaha hoggaanka waxda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi ayaa ka warbixiyey dib u dhicii koobnaa ee ku yimid qaadashada baasaboorka Soomaaliga. taliyaha ayaa sheegay in muddada koobneed ay ku hoolanayeen qalab casri ah oo lagu soo kordhiyey dhammaan xarumaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha qalabkaasi oo fududeynaya qaadashada baasaboorka isagoona shacabka Soomaaliyeed uga cudur daaray muddada yar ee hakadka la geliyey qaadashada baasaboorka haatan shaqada ay ku soo noqotay caadigeeda. sidaan la wadaagnay muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaa dib u habeyn lagu sameynayay hababka lagu bixiyay baasaboorka. waxaa sidoo kaleeto la dhismaheeda la dhamaystiray data center cusub oo lagu ragayay safarada iyo hababka muhiimka ah taas oo markii hore aan qorsheynaynayn ugu qaadato muddo usbuuc ah laakiin ay dhacday in maalmo dheeri ay ku darsoomaan. muddadaas marka la hagaajinayay oo la hormarinayay qalabka iyo hababka lagu bixiyo baasaboorka iyo data centerka cusub oo loo guurayo waxay keentay in hakad uu ku yimaado bixinta baasaboorka taas oo aan ka dareemay in bulshadu ay dhacda bulshadu in ay dareemaan cariiri iyo culays ay dareemaan. runaantii inagoo aada uga xun horaan uga cudur daaranay waxaan maanta rabaa inaan halkan ka caddeeyo in hawshii ay sideeda u bilaabatay oo maanta ay shaqadu socoto haddii aan la yidhaahdana ay sidaa ku socon doonto iyo sida caadiga ahayd sida kasii fiican oo ka fudud haddii aan la yidhaahdo. waxaan arkay oo aan arkayay in bulshadu ay cabashooyin gudbiyeen wixii marka inagana quseeya howlaha bixinta baasaboorka waxaan isleeyahay jawaabteedu intaa ayay noqonaysaa. hadalka taliyaha waxda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan hakad yar la geliyey qaadashada baasaboorka. arrintaasi oo timid kadib markii qalab muhiim ah lagu soo kordhiyey dhammaan waaxda waxaana arrintaasi haatan ka hadlay mas-uuliyiinta ugu sarreysa waaxda socdaalka oo sheegay in qalabkan uu muhiim u yahay fududeynta baasaboorka. ciidamada militariga dowladda Soomaaliya ayaa howlgallo lagula dagaalamayo xaalufinta dhirta ka sameeyey deegaano hoostaga gobolka Galgaduud. Cali Xasan Barqadle Cali Gaab ayaa warkan inoo haya.
howlgalkan oo ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 12aad ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa degmooyinka Dhuusamareeb iyo Cawd Waaqe gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug. howlgallada ujeedkoodu wuxuu ahaa sidii wax looga qaban lahaa xaalufinta dhulta oo deegaanadaasi si xawli uga socotay. howlgalku wuxuu yimid kadib markii odayaasha dhaqanka deegaanadaasi ay saxiixeen go'aan ku aadan in wax laga qabto dhirta la jarayo isla markaasna la xaalufinayo deegaanka. ciidamada amniga ayaa gacanta ku soo dhigay ilaa iyo 4 dhalinyaro oo ka howlana jaritaanka dhirta isla markaasna xaalufinaya deegaanka iyo sidoo kale goobo ay dhuxul ka shidayeen oo gaaraya ilaa iyo 4 goobood oo ciidamada amnigu ay la wareegeen isla markaasna ay cagta mariyeen. sargaal sare oo ka mid ah ciidamada howlgalkaasi fuliya waxa uu warbaahinta u sheegay inay sii wadayaan howlgalka ballaaran ee lagula dagaalamayo jaritaanka dhirta iyo sidoo kale xaalufinta deegaanka. waxa uu sheegay inay uga gol leeyihiin sidii looga hortagi lahaa dhammaanba in nabadguryo deegaanka isla markaasna dhuxushu ay noqoto mid kasii socota jaritaankeeda deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. bila ka horeeyay markii madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf uu soo saaray warqad xaraan ka dhigaysa in la jaro dhirta deegaanada dowlad goboleedka Galmudug isla markaasna lagu amray laamaha amniga dowlad goboleedka Galmudug inay wax ka qabtaan xaalufinta dhirta. odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanada howlgallada ciidamada amnigu ay ka sameeyeen oo qaarkood la hadleen warbaahinta Shabeelle waxay soo dhaweeyeen kana hambalyeeyeen howlgalka lagu ciribtirayo jaritaanka dhirta ee ka soconaya deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug. waxayna sheegeen inay garab istaagi doonaan laamaha amniga si ay uga hortagaan nabadguur ku yimaada deegaanka. deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ee gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa inta badan waxay yihiin kuwo laga jaro dhuxusha, waxaana arrintaasi ay dhabarjo weyn ku tahay isla markaasna ay dhibaato ku tahay dadka xoolo dhaqatada iyo sidoo kale nabadguurka deegaanka. Cali Xasan Barqalle Caliga, warbaahinta Shabeelle, Galmudug. mahadsanid Cali Gaaba. al-shabaab ayaa sheegay in 3 ruux oo iskugu jira askar iyo ergo ay ku dileen goob fagaaro ah oo ku taala deegaan hoostaga gobolka Shabeellada Hoose. sida warkani mar kale uu noogu faahfaahinayo wariyaheena Ismaaciil Axmed Maxamed Ismaaciil Turki. maxkamadda al-shabaab ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa xukun dil ah maanta ku riday askar ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee soo xulay baarlamaanka federaalka Soomaaliya. sida lagu sheegay warka soo baxay al-shabaab 3 nin oo lagu toogtay fagaara ku yaala deegaanka Mubarak ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Maxamed Tifow Abuukar oo 59 jir ah kana mid ahaa ergadii soo xulay baarlamaanka federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Abuukar oo 29 jir ah kana tirsanaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, iyo Maxamed Faarax Aadan oo 28 jir ah kana tirsanaa ciidamada xoogga dalka. al-shabaab ma cadeen sababta ilaa iyo haatan askartan iyo odayga dhaqan ay u dileen. halka warkaasi subaxnimo aad kala socotaana waa idaacadda Shabeelle Muqdisho Soomaaliya. haatan akhbaaraadka dibadda. ugu yaraan 3 qof ayaa geeriyootay 12 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii nin hubeysan oo weerar ku qaaday suuq Christmaska oo ku yaala magaalada Strasbourg ee dalkaasi Faransiiska. goobtaasi oo una iskaga baxsaday sida uu xaqiijiyey wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Faransiiska Christopher Casner. suuqani oo ahaa mid saxmadiisu ay aad u badan tahay xilligaasi ayaa waxaa ku sugnay dad fara badan kuwaasi oo u soo adeeg doontay ciidda Christmaska oo xilligeedu uu soo dhow yahay. wasiirka ayaa xusay in ninka weerarka fuliyey ciidamada ammaanku ay rasaas isweydaarsadeen 2 jeer balse uu baxsaday. intaasna waxa uu ku daray in ay socdaan howlgallo lagu baadigoobayo ninkaasi oo aan magaciisa la shaacin balse daadiisa lagu sheegay 29 jir. ciidamo gaaraya 350 askari iyo 2 diyaaradood oo nuuca loo yaqaano helikobtarka
ayaa la geeyey goobta weerarku ka dhacay kuwaasi oo ku raad jooga ninkaasi hubaysan. ma jirto ilaa iyo haatan cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, balse inta badan kooxda daacish ayaa sheegata mas-uuliyadda weerarada noocana, kuwaasi oo xiliyada krismaska laga fuliyo dalalka reer galbeedka. warkiisu waxaynu dhegeysaa kala socoteen idaacadda Shabeelle.